بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV caawidin haya waxa kamida madaxweyne waare iyo madaxweyne lafta gareen oo ka bixi raba gacanta dawladda federaalka kadib shirki Garowe madaxweyne waare oo beeniyay in fashil uu ku dhamaaday shirki Garowe ay ku kala tageen madaxda dawladda iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada saameyn intee leeg ay filla Soomaaliya ku yeelan kartaa isbahaysi cusub oo madaxweynayaasha gobolada qaarkood ay ka dhiseen magaalada Garowe sarkaal amisom ka tirsan iyo ilaaladiisa oo lagu dhex dilay xarunta xalane digili mirifle oo ku hanjabay inay qaadi doonaan talaabo karna beesha madaxweyne farmaajo haddii aan muddo kooban lagu sii dayn Mukhtaar Roobo Abu Mansuur xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo walaac ka muujiyay fashilkii ku yimid shirki Garowe wararka dibadda wararka TV caawa idin haya waxa kamida madaxtooyada Kenya oo jawaab ka bixisay in la waayay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo maalmihii u dambeeyay baraha bulshada lagu baafinayay daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararkaasi oo fidsan madaxweynaha dawlad goboleedka Hiirshabelle iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Garowe kadib fashilkii ku yimid shirki Garowe ayaa ka bixi raba gacanta dawladda federaalka ee Soomaaliya oo lagu xaqiiqinayay iyadoo uu natiijo la'aan ku soo dhamaaday shirkii wada tashiga qaran ee madaxda dawladda iyo madaxda maamul goboleedyada uga socday magaalada Garowe isla markaana madaxdii ka qayb gashay shirkaasi ay ka huleeleen magaalada Garowe ayaa waxa shir gaar ah oo saddex geesood ah uu ku dhaxmaray magaalada Garowe madaxweynayaasha Puntland Hiirshabelle iyo Koonfur Galbeed shirka saddex geesoodka ah ayaa waxa looga hadlay iskaashi xiriir iyo wax wada qaybsi dhaxmara saddexda maamul ee kala ah Puntland Koonfur Galbeed iyo Hiirshabelle waxaana shaaca laga qaaday isbahaysi cusub oo ay sameysteen saddexda maamul madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shirka furay ayaa ka hadlay muhiimadda shirkan iskaashiga ah isagoo soo dhaweeyay xiriirka cusub ee dhaxmaray Puntland Hiirshabelle iyo Koonfur Galbeed madaxweyne Dani oo hadlay ayaa yiri runtii waxa sharaf weyn noo ah inaan halkan ku qabsano shirkan saddex geesoodka ah oo runtii qayb ka ah geedi socodka dib u dhiska Soomaaliya iyo sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd dawlad federaal ah oo awood leh waxaan ku faraxsanahay saaxiibaday madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen iyo madaxweyne Waare oo runtii kamid ah wafuudii badnayd ee halkan ku lahaa shirka wada tashiga ah ayaa u yiri madaxweynaha Puntland oo ka hadlay iskaashiga cusub ee ay yeesheen hogaamiyaasha Puntland Hiirshabelle iyo Koonfur Galbeed madaxweynayaasha Hiirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa raadinaya isbahaysi ay gabaad ka dhigtaan maadaama ay noqdeen kuwa go'doon ka ah isbahaysigii Puntland Galmudug iyo Jubbaland inkastoo lagu tirinayo dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamuladaasi in xiriir wanaagsan ay la leeyihiin hogaanka dawladda Soomaaliya lama ogo isbahaysigan waxa uu kaga duwan yahay isbahaysiga kale ee Puntland Jubbaland iyo Galmudug kuwa oo dhawaan magaalada Nairobi ku kulmay isla markaana dacwooyin ka gudbiyay hogaanka dawladda Soomaaliya kadib kulamo ay la yeesheen wakiilada beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa been abuur ku tilmaamay in fashil uu ku dhamaaday shirki Garowe ee madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku kala tageen madaxweynaha dawlad goboleedka Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Garowe ayaa beeniyay in fashil uu ku dhamaaday shirki Garowe oo ay ku kala tageen dhawaan madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada madaxweyne Waare ayaa waxa uu sheegay in shakhsiyan isagu uusan qabin in fashil uu ku dhamaaday shirka madaxda dawladda iyo madaxda maamul goboleedyada ay ku yeesheen magaalada Garowe kaasoo aan ka soo bixin wax qodob ah isla markaana madaxdii ka qayb gashay ay ku kala tageen madaxweyne Waare waxa uu shaaca ka qaaday in rajo wanaagsan uu ka qabo in mar kale dib la isugu soo laabto waxa uu sheegay in ummadda Soomaaliyeed ay wax badan ka sugayso madaxda dawladda iyo madaxda maamul goboleedyada isla markaana wax walba wada hadal iyo heshiis lagu dhameyn doono kulamada soo socda sida uu hadalka u dhigay saameyn intee leeg ayaa madaxtooyada Soomaaliya uu ku yeelan karaa isbahaysi saddex geesood ah oo madaxweynaha Puntland madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Hiirshabelle ay kaga dhawaaqeen magaalada Garowe kadib fashilkii ku yimid shirkii madaxda dawladda iyo madaxda maamul goboleedyada waxa aad loo hadal hayaa isbahaysiga cusub ee hadda ay sameysteen madaxda maamul goboleedyada Hiirshabelle Koonfur Galbeed iyo Puntland oo hadda ku soo biiray isbahaysiyada ay leeyihiin hogaamiyaasha maamul goboleedyada dawladda Soomaaliya ayaa dadaal badan u gashay sidii ay dhankooda u soo wada marin lahayd madaxda dawlad goboleedyada balse waxa caqabad adag ay kala kulmeen madaxda maamulada Jubbaland iyo Galmudug oo aragti ahaan aad u dhaliishan hogaanka dawladda Soomaaliya
kadib markii lagu kala tegay shirkii magaalada Garowe waxaa kulamo gaar ah ay dhaxmareen madaxda dawladda Soomaaliya iyo madaxweynayaasha Puntland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. kulamadaasi ayaa looga arrinsanayay arrimo dhowr ah waxaana kulamada ugu muhiimsanaa ay dhaxmareen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland, taasi oo keentay in isbedel weyn uu ku yimaado madaxweynaha Puntland. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa u muuqda mid wax badan ku bedeshay mowqifkii hore uu taagnaa, waxaana uu ka mid noqday isbahaysiga cusub oo ay yeesheen madaxweynayaasha Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Puntland. isbahaysigan cusub ayaan la ogeyn waxa uu ka bedeli doono xaaladaha culayska ah ee saaran dawladda federaalka ee Soomaaliya ee kaga imaanaya hoggaanka maamul goboleedyada. dawladda Soomaaliya ayaa isbahaysigan cusub waxa uu kaga dhigan yahay in uu ka yaraan doono culayskii ugu badnaa ee kaga imaanayay dhanka maamul goboleedyada, waxaana hadda kaliya u soo haray hoggaanka maamulada Jubbaland iyo Galmudug kuwaasoo bilaha soo aadan geli doono olole doorasho. waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ay isugu yimid xubno sarsare oo ka tirsan xisbiga amni iyo cadaalad, odayaasha guurtida dhaqanka Digil iyo Mirifle, aqoon-yahano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda beesha Digil iyo Mirifle, waxaana kulanka looga hadlay qaabkii loo sii dayn lahaa Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo muddo ka badan 4 bilood ku xiran magaalada Muqdisho. kulanka ayaa laga soo saaray qodobo kooban oo looga hadlayo wada hadal madaxda dawladda la yeeshay iyo qaabkii loo sii dayn lahaa Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. odayaasha kulanka ka qayb galay ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu diiday in la sii daayo Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo muddo 150 maalmood ah ku xiran magaalada Muqdisho. waxaana qaar ka mid ah odayaashii ka qayb galay kulanka ayaa qaarkood ka codsaday dawladda Soomaaliya in si degdeg ah oo bilaa shuruud la'aan ah loo sii daayo Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. odayaasha kulanka ka qayb galay qaarkood ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyne Farmaajo uu shuruud ku xiray sii daynta Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur, laakiin Mukhtaar Roobo ayaa diiday shuruudda lagu xiray oo ahayd in ciidamada iyo hubka uu hayo uu ku soo wareejiyo dawladda iyo in wadamada Turkiga iyo Qatar midkood uu ku noolaado. odayaasha qaarkood ayaa sheegay in Sheekh Mukhtaar Roobo uu diiday dalabkaasi madaxweyne Farmaajo uu hordhigay isagoona sheegay in lagu cabirinayo. odayaasha qaar oo kulanka ka hadlay ayaa ku hanjabay in madaxweyne Farmaajo haddii muddo 15 maalmood ah aanu ku sii dayn Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur ay qaadi doonaan tallaabo ka dhan ah beesha madaxweyne Farmaajo iyagoo soo afduuban doona siday hadalka u dhigeen beddelka Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. sarkaal ka tirsan ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo askar ilaalo u ahayd ayaa lagu dhex dilay xarunta Xalane oo ah saldhigga ugu weyn ciidanka AMISOM ay ku leeyihiin Soomaaliya. askar ka mid ah ciidamada dawladda Uganda ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa la sheegay inay isku dhex dileen gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Xalane. waxaa la shaaciyay xogta la xiriirta dagaal kooban oo askarta ku dhaxmaray xarunta Xalane. afar ka mid ah ciidamada dawladda Uganda ee qaybta ka ah ciidanka AMISOM ayaa la sheegay inay geeriyoodeen kadib markii ay dhexdooda isku rasaasayeen xarunta Xalane. warar soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in khilaaf soo kala dhex galay askari ka tirsan ciidamada Uganda iyo kormeerihiisa ay keentay in askarigii rasaas uu la dhaco kormeerihii iyo 2 askari oo la socotay, waxaana kadib goobta isku dilay kormeerihii sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiisha AMISOM. afhayeenka ciidanka difaaca Uganda Bridge Ricardo Karemeri ayaa xaqiijiyay in isku horimaadkaasi uu ka dhacay xarunta Xalane isla markaana ay ku geeriyoodeen 4 askari oo Uganda oo midkood uu isdilay kadib markii uu dilay kormeerihiisa iyo 2 askari oo la socotay. waxa uuna sheegay in baaritaan ciidanka AMISOM ay ku hayaan dhacdadaasi. xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay fashilkii ku yimid shirkii Garowe ee dhaxmaray madaxda dawladda iyo madaxda maamul goboleedyada. xildhibaanada ugu jira xisbiga midowga nabadda iyo horumarka labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka xisbiga oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho 9kii bisha ilaa 12 bishan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay dood iyo falaqayn adag ka sameeyeen nidaamka doorashooyinka dalka, sharciyada doorashooyinka ay dhawaan ansixiyeen golaha wasiirada iyo aragtida uu ka qaadanayo xisbiga. waxay si qoto dheer u falanqeeyeen qaabka doorasho ee uu dalku yeelan karo iyadoo laga fiirinayo marxaladda lagu jiro iyo daldaloolada sharciga ee ka muuqday sharciga doorashooyinka oo ay dhawaan ansixiyeen golaha wasiirada. xildhibaanada iyo hoggaanka xisbiga ayaa qabtay guddiyo shaqo oo dhowr ah kuwa oo daraasad ku sameyn doona hindisa sharciyaadka doorashooyinka
aragtida xisbiga iyo doorashooyinka dalka 2020 iyo 2021 iyadoo sida ugu wanaagsan xisbiyada dalka ka jira iskaashi ugu samayn karaan nidaamka doorasho laguna qaadan karo mowqif midaysan. ugu dambeyntii waxaa xildhibaanada iyo hoggaanka xisbiga hoosta ka wada xariiqeen in dalku uu wajahayo daruuf siyaasadeed oo qalafsan wixii ka dambeeyay shirkii fashilka ku dhamaaday ee Garowe ku dhaxmaray madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada. wararka dibadda daawadayaal wararka TV caawa idin hayana waxaa kamid ah madaxtooyada Kenya ayaa jawaab ka bixisay in la waayay madaxweyne Uhuru Kenyatta kadib markii shacab weynaha Kenya qaarkood ay ku baahiyeen baraha bulshada la baafinaya madaxweyne Uhuru Kenyatta. maalmihii la soo dhaafay waxaa si awood leh barta Twitterka loogu hadalhayay in la la'yahay madaxweynaha dalka Kenya, balse waxa ugu dambeyn ka soo jawaabay xafiiska madaxweynaha Kenya. gabadha afayeenku waa madaxweynaha Kenya Kinsa Dena ayaa qoraallo badan ku shaacisay baraha bulshada inay aad oo la yaabtay waxa lagu daabacay Twitterka iyadoo aysan jirin dhibaato jirto, sidoo kalena madaxweynaha uu ku jiro howlo shaqo sida ay hadalka u dhigtay. wax cajiib ah ayay noqotay markii Twitterka lagu soo qoray sheekooyin la yaab leh oo muujinaya in uu maqan yahay madaxweyne Uhuru. waxayna sameeyeen qoraallo is-afgarad ah oo u dhignaa sidan: Where is Uhuru? Unfitly present is Uhuru, taasoo micno ahaan u dhigan aaway Uhuru iyo raadiya Uhuru. madaxweynaha lama arag tan iyo 23 Abriil markaasuu u dhoofay dalka Shiinaha. ujeedkiisuna waxay ahayd in uu ka raadsado deyn ay ku dhistaan qad tareen oo la sheegay in qiyaastii ay ku baxayso lacag malaayiin dollar ah. dadka u dhashay waddanka Kenya ayaa qiray in aysan arkin madaxweynaha tan iyo markaasi, taasina waa midda keentay hadalhaynta ugu badan baraha bulshada iyo in la baafiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta.